kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal idil ahaantiin meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalnay in halkan heesihii hore ee fanaaniintii hore ee qaranka iyo fanaaniintan hadda cusub aan halka idinku soo gudbino inuu noo soo xasuusiyo oo inoo ciyaaro oo inoo qaado codkiisa macaan waliba kaban live anagoo naloo tumaayo aan uga mahadcelino fanaanka Cabdikariin Maxamed Yuusuf Kalimow waana la daawan doontaan ku soo dhawaada barnaamijkaas gaarka ah barnaamijka waxa kabanka inoo tumaya shiine oo isagana kamid ah dadka fanaaniinta ah ee ku nool magaaladan Oslo ee wadanka Norway isla markaana aad jeclaysan doontaan habka kabanka oo u garaaca wayahay heesaas ma la wadaagi kartaa heesaha hindiga aad ka qaadi jirtay iskuulka والله أرتلانك سدان وحق سوري كتاب ملنا وقت بدن لكن هذا حسوستا محايل فنك ومسكح فرناي فيلمك وحكو جرو لح تضبحس لبض فينا في سجل أنت واحد في جر marka waxa famastri ahaanin la dhashay macallinkii weynaa isugulle walaalkiis Axmed Cali Banks la jiro oo goalkeeper ahaan jiray famastri ahay fankan aad u jeclaa galaaska markuu soo galo horka istaago leeyahay subax sabtiga heesta baarka hore ka qaad hore ka qaada marka heesa horta aniga inta badan waxa waaye isku kamid ah Kashoor iyo Mukesh iyo Maxamed Raafi inta waa qaad jiray Mukesh oo kale si marka Kashoor Mukesh marka qaad waxa kamid ah oo mere dil ke che kehnaye mera dil ko tuwa kiye longi sidan wada wixii waa ilo waa gartay marka hore ka qaadi jiray wayahay markaan u soo gudubno hadda wadanka Norway ka waran habka fanka waagi hore fanka Soomaaliya markii la joogay qiimo lahaa oo fanaaniinta halbay ahaayeen oo wala mideysna bal ka waran hadartan wadamadan Yurub waa lagu kala baxay Norway bal ka waran wallahi Norway kulli waxa waaye dhibaatadii fanki ku dhacday ee dadka la qabtaa waa iska حسوس بالها فن مش لقوم هاي فن سيدي وقرن قرن دو بربور فن كوابربور محايا لأنك فنانك وحوم مثلا كتركي وكيمت إنك استو هذا ضد كي فنكي لأن يرد القلدي أو أسكر لقى معناها رير قلبات يو قاونان يو وحكو دوبا دخن كودا يكتجاين معناها ما بقى قفك فنان وياه محايا لقفك فنان وياه ودن كيس وأنا أقول لي بستا سيدي كالتركي ودن كيس أقول لي بسنجر ضد كي براء وحي وناجي أم برناقنكي أم هديه ودنكيسة لكن هذا حمود فنانين تهدى الميرو يوروب كورا فنكي أنت قبل لعبة وحب أمسيهم إنه هو سان سيدي ماري كي ومارت وهيسسي مدوني وأمريكان واحد لكن كليلين أنا صومالي عطاه مركب واجي هو هبلدي وبري هبلدي كله هيجان هرس إفتين هرسات وحنا برجرين كالتوركا مركز ودن كله إنك استول يسكون حاجة درجة وهذا مركز رواد الجلاء لسمين جري جبر لكن ka tagtay iyo rawaadi gabagabada lagu soo gabagabeeyay qafkaas inuu qasaaray dhaqankiisa ka tagay oo nal baraarujin la sameyn jiray hadda waxa uu daaba gabadhii inay soo qaadanayso dharkii ugu dambeeyay ee ku haystay fanaanadii Mareykanka ka soo baxday kultuurkeeda iyo dhaqankeeda ee fanaanku aad ma taqaano ninkana ma yaqaan waayahay hees baa la qaaday in farxiya fiska oo fanaaniinta aadka dadka u jecel yihiin oo boqorada codka taan dhigi karo xilligan hadda jirta heesaasi qalcadii aad ku lahayd ma noo qaadi kartaa adoo mahadsan wallahi farxiyo dhowr hees la qaaday waxa kamid ah heestii ugu horeysay heestii labaad ee yeelataan filaa farxiyo in aniga la qaaday qancisa lahaa hees kale koob la qaaday marka waa badan yahay sax la qaaday marka teerabtaana ku soo xarma mid Allah mid ugu jeceshahay wana la wadaagi kartaa aniga heesta ugu jecelahay farxiyo aan la qaado oo heesteedii ugu horeysay aan yeesho waxa la qanciso qalanjadii haweenkii qurux lagu manaystay qarnigan hablaha kacay qaradaha adduunyada qancisay nafteedii aday ku qashuucde qoswacan ma noqona qurux ma wada qoswacan ma noqona qurux ma heesalaqat waaw ereyad cajiib ma iyada waxay leedahay marka والله إذا محلا قمنا جعلكي قيسيو علمي بديلي أنا يهو قيودي قادي أنكو أشاقي لفتي ذا قادي
aday ku qashuucde aday ku qashuucde wasuucan ma noqonaa qurux ma u wadaagna saas igu jawaabaysaa idan wow hees aad u cajiib ah waaye waxaa sameeyey abwaan qaadiro laxankana waxaa sameeyey laxmiistaha qarniga mustafa kiiko marka waa heesteedii igu horeysaan yeesho wow waa kaaga mahadcelinaan saan ula wadaagta aan u galna fankii hore ee xiisaha lahaa fanaaniintii hore ee soomaalida fanaaniintii qaranka bal wiil iyo gabar yaa fankoodii taageeri jirta wallaahi aniga fanka maxaa taageeri jirta hadii la dhaho dharka noocay xirataa waa maxaa yeelay maba ka baxay waa bad marka aan maxaa yeelay fankii hobby waa igu dhex jiro marka xanaaqsanahay oo caawa 10 la ii soo dhigo heesa gooniya xiisay jiray habeenka faraxsanahay fanaaniina xiisay jiray habeenka maartay ala Umar Dhuula xiisay jiray habeenka 10 dhigayo oo maartay heesahii Maxamed Ali Kaari oo macaanka badnaayo Axmed Ali Galqaade aad u xiisay jiray marka ma la soo koobi karaa maartay Xuseen Yuusuf Tarabi heesiis aan u jeclahay waana qaadaa Axmed Naaji sidoo kale Aweys Khamiis فاضل قاسم وجعلها مقول هسه ما له سوق بكرة حسن آدم جوبا هسه هذه فنانين بدنا أدو جعل أدو حسيا ويا إن هل هس أو إن هسها عادي هي هل هس هسها حمرقة إن من لو ذا يكرتا وأشاشة والله هرت هسها حمرقة أنا نينا رعدستا فنكن وكفديست هذا حلا الشيخ عويس وسلام هذا مقلع وشاشة سارين وعويس خميس مبوت عويس خميس مبوت ولقي وجعلاي المعجزة عن كسمي عن أنا وذا قاعدنا وحيد ودن كانوا شو كانت دور تضباطك قبل حافظنا لقى أروسات 72 73 هذا ملينا oo kuusta la hijray hees uu qaaday aan la duubin aan soo xasuusiyay waxa uu markaa see ku soo xasuustay ma la duubin video ma jirin see aday niyo ku soo xasuustay heesta uu qaaday marka mucjisay noqotay marka waxaan tusiyay in aniga jeclaay afkiisa aan dhageysan jiray marka heesiisa aan u xiiseeyo marka hees waxa jirto hadda aan soo qaaday Axmed Cabdi Gaashaan isii laakiin oo awees inuu qaad rabay iyo city isla qaad rabeen oo nasiibka aniga noqday aniga city in isla qaadno oo riwaayadii heesaas lagu sameyn lahaa ee baaqatay maartay oo xabti warshiq la dhaho waayahay bal hal hees oo awees khamiis mabuute uu leeyahay bal nala wadaag tii xitaa xilligii 73 ha noqotay لحكوني لح أيامودا لقي بنان كسولوغي هاي لما يا ودا ولعيفو إلا لا إله إلا لا إله إنك صو هساس أنا دوم جعلاي وجدار كذا عمدي أبو كرا قادر واد لك أوسن وقاضي واركا وهسا أنا جعلها واي واي إن هس أحمد عبد القاشان إن نصيبك هذا نقطي إن بل بيتك أديك على هذا هاي إن ما خشي heesta waxaa lahaa xabtii warshiq waxaa wada qaadnay boqorada banaadiriga hadda nool sitay qosolwanaag gabadhii qarnidii ugu dambeysay magaalada muqdisho qabsatay waaye qof kasta waa taqaanaa sitay aad ma u jeclaay marka nasiibkayga wuxuu noqday mar inaan la heeso heesta waxaa lahaa xabtii warshiq حقا إيجيل الحلقي ما حما لا حسكيجي حقا قاسرا انتي حاكن ومان كاسو حوشي لا 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 انتي حاكن ومان كاسو حوشي لا لا حمنا هي دمانا كحريقا تاي حمنا هي دمانا كحريقا تاي يا حبيبتي يا حياتي حبتي ورشيقان حرير كودق يا حبيبتي يا حياتي حبتي ورشيقان حرير كودق حستوا واستاس وجعل وانا دغيست هستاس ويه سها ان بناديرغا ahayn heesa badan oo adiga aad soo cusboonaysiisa aan dhageysto aad u macaan baa jira waxaan u maleynayaa weli inaan hees kugu maqlay Axmed Cali Cigaal uu qaado oo markaa qaadaysid runtii aan aad u jeclahay heestas ma xasuustaa horta inta aan ku xasuusin heestaas waxaa qaaday originalka Cigaal iyo Mogol waxaa soo wada qaaday bacday aniga inkastoo video aan ka sameyn Cigaal marka taariikh ahaan da ku sheego dhalinyarada xilliga ahay waxaa jiro
baar sports bar leisure oo teatrka hortiisa ku yeelay fioragtiisa oo heesaha cigaal iyo Axmed Suleymaan Badeysi inta badan heesaha cigaal iyo laga saari jiray iyo heesaha ninka la dhihi jiray Maxamed Ali Gaari marka inta badan marka marin mursal cigaal la saari jiray marka shaleemada ka soo baxo anoo ku nasan wax ka cabin ma soo gudbi jirin marka meeshaan ka jeclaaday heesta marka barasha Allah waxay ka hadlaysaa maartay taariikhda jacaylka iyo inay tirtirmin iyo maartay hidaha iyo guurka iyo maartay rabitaanka labada qof ka dhaxeeya inay tahay maartay wax buur aan tirtirmin taariikh aan tirtirmin inkastoo macnaha aniga aan diidayo gabadha oo dhahay barashada horteed maya marka heesta waxa la taariikhdu waa buur biya qaadi karinu biryadu ma dhulka meel banaaniyo meel dariira ruux tagay barqareer mawdo kuma waa bariiste adigoo bukaan qabin balaluma yeerte barashada horteed maya waxaad igu baaqdiyo ballantaadu fududahayo beer la xawsi weynaa marka aad aan jeclahay siisankaas codkaaga cajiib ah oo xaqiiqatan waan kaaga mahadcelinaa sida barnaamijka nooga aqbashay waqtigaaga noogu hurtay waayahay gabagabadii mareena hal hees waan kaa codsan doonaa inaan la wadaagto ka hor laakiin waxaan kaa codsanayaa hal sheeko inta aad wadankan joogto ee kugu qosolka badneed oo markaas wax xasuusato aad qosasho mana la wadaagi kartaa si daawadayaasha markay barnaamijkan daawadaan ee iyaga laftirkooda ay aad u qoslaan والله sheekooyinka oo wadankan igu soo maray waa sheekooyin aad u macjiso badan qaarkood marka for example marka ku soo qaato waxa waaye gabar waxa jirta oo school aan isla dhiganay iskuulkii marka isla dhiganay oo wadanka marka soo galnay qissa taariikhdaada ka sheekeeyay markaas waxay ka sheekeysay iyadii hooyadeed inay doon soo wada fuuleen dadka buurbuuran doonta saaran waa la tuuraya marka waxay tiri 5 ay hooyada ku jirto waxa la hala tuuro marka mucjisada iyaga ka badnaa gabadhii waa noosha waa sheekeynay aabeen waa dhintay ilmo agoona ka soo tagnaa ana ugu weyn hooyadii marka xogaa markii isdiyaar rabtay oo iyo dadkii ugu dambeysay ku kala waabal oo la boobsiiyay iyada xogaa la ixtiraamay waxay dhahaysaa dhigaa iloobe dhigii soo bixin hadana fure wax yar oo meel uu guntana hadana soo bixin waxay dhahay hoosaan ilmaha cunugan oo saan qabo ka ilaali iskoolka inta ay ula jirtay iyo macallimadii ay ka oynsiisay gabadhi mucjisada iyagu yaa ku balnayd qof nool oo hooyadiis fiirnaay oo hooyada inta la dardaarantay oo waxa badal lagu tuuray marka mucjisadii qurbaha marka ay mid iyagu yaa ku balnayd هذا أروح سكولكي معلمين تحت وين ما أنتوا أنا الفصح سكولكم أنا الفصح مقال أو أنا كديجنا يا مارتي أو ترين بران كده كتال أنا هذا كسكت إنا علمي سيبك بالله ويا هست إن هرجيس أحمد على عقال وحسن طعم ولا يا سيفعل هست بلنا لو ذاك برنامج كان كسر حرنا وهذا مجعل هستس إنان إذن كأو قاضو محايا لعقال وحوقعي في بيتكي تتكفن كأنك في صدو كليجي سماهن واحد جري الله عبد القادر حسن ويسيس الله هيس عمل عنك قاضي البني ذا يوري عنك دري وليه فنك معناها أدي يوري رجلي inkastoo kooxii durdur aan saaxiib la ahay ay naftooda ee maartay fanki ugu dirigeliyan oo maartay ina heeso waxa kale salaama xididi oo ninkii igu horeeyay oo wadankan igu yimid 2004kii oo qaaci ii tumay oo ina heesta ii raahay وسلامة استاذك مركا وإبروي لبا هيسو إسي لبا هيسنا واللومي مركا هذا أقول حماه مركا لك وانكي مارس إلا وأنا هيستا يويري مركا حديدي والسلامة أصحابته مجا موقي يتقان دمان والسلامة فلان أنت ملك استيجون والسلامة مركا وحروا فنك
horta hobol hayb ma noqdo marka meel kasta uu joogo waqooyi koonfur meel kasta uu joogo waa maartay waa NFD Djibouti Soomaali kasta oo fanaan kasta meel kasta joogo Soomaaliya waa salaama maxaa yeelay fanka hobolka hayb ma noqdo waxaan u sheegaa dhalinyarada maanta waxa arkay dad xoogaa kala xirxirna arkay oo amba dareensan fanka inuu yahay local waxa leeyahay fanka local ma international fanka waa badaqaba iyo biyo qaba waxa waaye kan kurbaanka tumaayo iyo kan waxaan ka saaraa iyo kan ereyada samaynayo waa isku xiriyeen haddii mid la waayo fankaas ma soconayo marka fankiina horna wuxuu ku dhisnaay taas ahayd marka ereyadii iyo abwaankii inuu silsilada keeno kii banaadir joogana muusigii iyo laxankii inuu saaro fanka Soomaaliya saasoo fanku ahayo marka hadda waxaan dareemayaa in xoogaa uu jajabkii keenay oo fankii kale xirxiran yahay oo complete ahayn maxaa yeelay marka aniga aan muusiga fiican helo waxaa laga yaabaa ereyadii fiicnaan dhan kale iga jiraan marka waa xoogaa fankii waa qabyo marka waxaan leeyahay kulligii waa wada salaamantiin laakiin hobol hayb ma noqdo waa in sama arbeed la wada sameeyaa way heesta Hargeysa inoogu tuur marka
hammigaygu raaci mamarkaan hawoodee absangeeya ugubo ku heraaran dooxada hammigaygu raaci dineelaa nasiib leh igada dul saare rabbi u hagaaja nasiib leh igada dul saare rabbi u hagaaja mahoygii jacaylkee haween anigoon rabin habe anigoon qabin hosta iga yeera mahoygii jacaylkee haween anigoon rabin habe anigoon qabin hosta iga yeera habeenkii taariikhdii markii raabtii hadda saxaday tahay iyo markii la helaaye isku soo hagaage habeenkii taariikhdii maalintii raabtii hadda sacaday tahay iyo markii la helaaye isku soo hagaage waayahay kabaniistaha caawa kabankii inoo garaacaya Saciid Cali Cumar shiina cuud ayay u yaqaanaan dadka inta badan waana dadka fanka loogu jecel yahay wadankan Norway ee magaalada Oslo shiina maanta caawa dhan kaban baa inoo garaacaysay haddii aan ku iraahdo adiga caawa daawadayaasha barnaamijkan daawanaya hal hees u xul heeste u xuli lahayd isla markaa adoo garaacaya isla markaa noo qaadi lahayd horta waa salaamantiin dhammaan bahda telefishinka qaranka oo salaamaya gidigood adiga waan ku salaamayaa waxaan u qaadayaa caawa hees كل عنو دائما هسه لكن هو سودية هسه واحد إلى شعني يونك وياهي هسه نلضا وضع أنا نفتر كأنه واحد نطحي حيسة أدوين إن شينه عود وهسه إنه عيار
heeskan xasuusteedii bal waxay nooga sheegay heestan waxaa iskale allah yarxamir darramle ayaa lahaa riwaayad buu ku jirtay riwaayaddii ma xasuusto marka heestu kulley aduu waxay ku wanaagsan tahay sheekooyinka markaad sheekayso aad bay ugu fiican tahay markaas ku wanaagsan midda kale kulley waxbaan kusoo xasuustaa kulley aduu heesta aad baan u jeclay waayahay wallaahi horto caawa waxaa saarana heesaha naturalka kabanka ah waxaa yeelay fanaaniinta hadda natuur uma heesanaa marka waxaa rabaa dadka inay arkaan in natuur loo heesi karo dadkan lagu dhex jiro marka hees xuseen strabiska lahaay oo igu dheeri laho ayaan qaadaa mari musale xuseen qaada jir allah u naxariisto waa hees aad u jeclahay weligiina jeclahay marka taasaan doorbidaa inaa qaado waayahay bal heesta sanad khabatay way
kala dhantaane markaad soo dhawaata dhulku wada iftiima maba kala dhantaane yarsaday jacaylkuye inta uu dhan yiiriday madhaxgalay wadnahaho ma la dhuuftay awga yarsaday jacaylkuye inta uu dhan yiiriday madhaxgalay wadnahaho ma la dhuuftay awga ma la dhuuftay awga yarsaday jacaylkuye inta uu dhan yiiriday madhaxgalay wadnahaho ma la dhuuftay awga aad iyo aad u mahadsan tahay xaqiiqatan waan kaaga mahad celinayna aniga iyo daawadayaasha telefishinka qaranka heesahan xasuusta leh ee aadka u macaan na ka muuqato fanka quruxda badnaa ee soomaalida nacabkooda
nabar ku gaaro niyadaydi aragtay maxaad igaaga naban tahay nanaadinaysa nacabkoodhana maaye markuu nabar ku gaaro niyadaydi aragtay maxaad igaaga naban tahay nanaadinaysa nacabkoodhana maaye hees xasuus ah heesta nasteexo sababta aan ku weydiiyey waxa ay tahay runtii waxay ka mid tahay heesaha aan aadka u jeclahay adi maxaa ku xasuusataa aad waxaan ugu xasuustaa yar saaxiibkay ah oo cabdiraxmaan dudaa la dhihi jiray oo borteri waxaa jeym dadka dhan yaqaaniin ayaa aad u jeclaa jiray oo jecel labaha soo maray aad iyo aad marka taasaan ku xasuustaa heestan aad ayaan weysi jiray qaaciga meel kasta oo nasteexadan qaadi jiray marka waa xasuus gaar ayay tahay waayahay taas salaama saaxiibkay dudaay sweden ku nool hadda nasteex waa salaama maraykanka ku nooshahay waa li salaam waayahay maadaama heestan daawadayaasha aniga aan u xulay dhankii xasuusta heesihii hore adiga heestay inoo soo qaban lahayd wallaahi hees maxamed nuur gariig qaado ana gariig waa tan kuu sheegay aad iyo aad heesaan qaban lahay bal shiinan oo ina gees fadhiyaay u tilmaam heesta ay tahay waa hees loo sasankaaga iyo jaaha suleekha waayahay shiina waxaan kaa codsanaynaa ina kabanka suleekha inoo garaaday lahayne sumcad weeye jacaylkani suuradan
la dhigayniyo herya weeye ku saaran saray baan lahayne sumcad weeye jacaylkani suuraadaan la dhigayniyo herya weeye ku saaran sakal boolaha kuguyo sef lagu soo dhaweeye nin kasta diidayoonka sakal boolaha kuguyo sef lagu soo dhaweeye nin kasta diidayoonka naftanan sasabayo sumalara elinaye naftanan sasabayo sumalara elinaye suleeqayaragagan anafta u samaysiise saddex bay ku qaadaa hakaagoon salaataada suleeqayaragagan anafta u samaysiise saddex bay ku qaadaa hakaagoon salaataada heestan suleeqo maxaa u xulatay ayadana tii haddaa yar saaxiibkaa dartiisa u xulatay suleeqa waxaa waaye heesta ka horeyso aan kugu qaadayo Nasteexa. maya tu kasii horeysay oo maxamed nuur gariig ahay tanna suleeqana maxamed nuur gariigaas kale gariiga waxaa ugu jiraa favoriteyga fanaaniinta aan ugu jeclahay fanaaniinta oo fanka heesooda aan kusoo bilaabo waayahay aan ku mahad celinayaa maadaama aad heesihii horena noo ciyaartay kuwa cusub oo adiga aad leedahayna halkaan noogu ciyaartay waqtigaagana inoo hurtay Thank you. adiga iyo shiinaba aad idinkugu mahad celinayaa okay shiinacuudu waa mahadsan tahay aniga iyo asxaabta xaqiiqatan waana wada ciyaarsiisay heeskan dooqaagii bayd ahayd mid kale annagaa kugu dhegane inoo dooq oo inoo qaata waayahay noqda heesta waxaa iskale in la yidhaahdo cumar buu ahaa talo cumar wareer jabuuti waxaa la yidhaha heesta nafuu jacayl sanyido seeran heestaasaynu qaada waaya ayadii noo ciyaar
dumarna ka soocato seegan sunti jacayl leeftayo saaqan dumarna ka soocato seegan sunti jacayl leeftayo saaqan garamna kaa sugi miyaad siisan siriga maad gelin lahaydso garamna kaa sugi miyaad siriga maad gelin lahayso mise socahaad odhan lahayd sacan mise socahaad odhan lahayd sacan mise socaad odhan lahayd sacan shincud fursadan adigoo ka faa'iidaysanaya asxaabtaada ehelka iyaad halkaan ka salaami lahayd horta kule lama soo koobi karo laakiin waxaan salaamayaa saaxiibkii jaamac saruur oo magaalada nagal degan abwaankeyga magaalada Oslo waxaan kaloo salaamayaa maxamed sugaal magaalada Oslo magacii jaamac jaamac maxamuud waa jaamac saruur magac dheeri saaxiibkii koowaad saaxiibkii kelimo waxaan salaamayaa maxamed sugaal abwaan weyn magaalada noo jooga isla waxaan salaamayaa iyo dhammaantii garanaysaba كل أصحابته في رمضان تيجي لبناء خلي هذا. عاديات. عاديات. سلامتين. عاديات